بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الدولة دي سور كي سرتشوك وكعبتها لقداي مركاين ما أنت لبضع بوين كديننا وحى سيد على وضع سعتان بدوميها حسب جودني هذا لي كودي بيش أغص معلمتي خميستي وحى وكهذا لسد حرموضة أساسية وآدي مهم وهو دنكينا وأي تكواتهاي أرنت الدورشوين كايتهاي يهشيسكي لقى قاري وبقادي أرنت لبعضنا أيتهاي أرنت قبل كسناك كتاجن يهبكي أنه حسبيهان إنه وركني إن أرنت هسي حل لقى قاري كره أرنت وقدم بيسي أو هاي ما ملكيني يهب ما ملكيني إنه نظام ديكتاتوري أو كلي تلسنما وقصي صعده مركل لا يجوا واحد داعي يدك لا حدا يحيابها صعدا أرمها وقدوميه كهذلي أرنت وقوم عدوين وحاهيد أرنت قبل كسناك وحاو قدوميه كهذلي إن ودن كا أي هرتش بهذا وصامرين شبه هذا هاسي ودن كصامرين هبكي لو حليه لو مرعي أي هايد قضيتينمو ويلمو دلقات iyo mas'uuliyad madaxweyne ay ahayd maanta laakiin tiise xikmadda iyo odaytinimada iyo mas'uuliyadaasi aan madaxtooyadeeni maxaan ku raahdaa aan oolin sababta aan oolin waxa weeyaan waxa maanta madaxtooyadii Soomaaliland fadhiya madaxweyne dulqaadka doqonnimo u yaqaan wax kasta oo aad la akhrido iyo meel kasta oo aad la eegto dulqaadku muhiimad u leeyahay ee waliba hogaaminta u leeyahay hadda dhaqanka Soomaaliga eegto qofka reer xukuumaya ee suldaan laga dhiganaya ayaa la eegi jiray inuu qof dulqaad leeyahay oo caruurta loo diri jiray oo loo oran jiray gogasha ka xumeeya si loo darso oo loo fahmo qofkan inuu berito qof dulqaadan karayo hadda dimuqraadiyadda iyo waxaynu sheeganay aynu ku dhaqmayna adeegto dulqaadku waa rukniga koowaad ee dimuqraadiyadda meel aanu dulqaad oolin dimuqraadiyadda ma tahay labadaas ba ka kala diinta islaamka ee aynu ku dhaqmayno quraanka kariimka ah 103 jeer buu ka hadlaa dulqaad mar layna farayo mar wanaagiisa laynoo sheegayo siyaabaha kala duwan ee uu doonaha ku yimaadee laakiin 103 jeer buu ka hadlaa quraankuna doqonnimo dulqaadka uma yaqaan sidoo kale magacyada ilaahay sifaadka ilaahay isagu go'aansaday isagoo boqorkii dunidana inuu isu bixiyo ayaa waxa ku jirta dulqaad badan waxa ku jirta sabir badan inagana miskiin yaro dadkeena yar waa boqorkii ilaahay baa inuu dulqaad badan yahay isku amaanay miskiin inta yare Soomaaliland xukuma oo daalaadiciisa la arko maanta iyo sida maxaan ku raahdaa ay uga dulduulayso ayaa yidhi dulqaadku waxa weeyaan waa doqonnimo waa taata maanta aynu madaxa isugula wada jirnay aynu meel ugu socon laanahay taawey arinta caare haddaan anagu ku celinaynaa hal aan wada hadal iyo wanaag iyo dulqaad ahayn male hal kale arintaas ay leedahay waxa ka soo horjeeda waa qurun iyo dheeri in looga sii dhaadhaco tan anagu soo jeedinaynaa ee uu gudoomiyuhu ka hadlay aanu ku celinayna waxa weeye arinta caare xalkeedu waa in wada hadal iyo xikmad iyo dulqaad iyo sabir madaxweyne lagu maxaan ku dhahdaa xalli madaxweynahana waxaan soo jeedin lahaa 103 meelood ee quraanka lagaga xusay dulqaadka inuu eego baaro akhriyo fahmo si uu u garto dulqaadku inaanu doqonnimo ahayn oo ragnimo yahay marka xisbigu marka hadaba issue iyo arrin ka hadlo dhaqan baa abuurmay wasiiradeena qaarkood ay doonayaan inaanay issue-ga iyo arrinta laga hadlay ka hadala ay dadka meel kale ula kacaan xanuun iyaga hayay iyo meel xoqanayaan ay ula kacaan oo ay maxaan ku raahdaa ay ula tagaan wasiirka warfaafintu sida la socotaan hore wuxuu u yiri xisbiga wadani waa Soomaali weyn waxa aanu garanahayn hadalka uu oranayaa macnaha uu leeyahay iyo saameynta uu yeelanayo iyo waxa uu maxaan ku dhahdaayay marka uu mujtamac xisbi
qaran oo boqolkiiba 42 ay u codaysay hadalkiisa uu hadalkan leeyahay hadalkaasi uu baxaya adduunku uu akhriya luqada kale lagu turjumaya positionkii Soomaaliland ee wada hadallada uu daciifinaya laakiin isagu garashada inaanu lahayn ayaa run ahaantii maxaan ku dhahdaa hadalkiisa ka muuqata waxaynu ognahay ninka sidaa u hadlaya wasaaraddiisa sida u dayacan tahay taana uu ka hadlanaa waxa weeyaan waa wasaaraddiisa sidoo u hagaajin lahaa wuxuu maamulaa wasaarad ka dhaqaale badan 3 wasaaradood oo la isku daray oo waliba wasaaradihii muhiimka ahaa oo la isku daray haddana sida la socotaan radio Hargeysa halay hadda tagta ma dhageysan kartid TV-gii qaranka qaybtiisii guduhu waa la wada socotaan oo ma shaqeyso marka idaacad iyo TV uu maamuli kari waayay in issues-ka waaweyn ee qaranka marka madaxda xisbiyadu ay ka hadlaan maxaan ku dhahdaay mirqaan hadlo run ahaantii waxaan isleeyahay inay dhaawac weyn u geysanayso sumcaddii iyo maxaan ku dhahdaa wada jirkii iyo maxaan ku dhahdaa ummadnimadii Soomaaliland annagu taanu ka hadlanayno ku celcelinayna waa issues-kaas haddii arrinta caaro tahay position kaasaan annagu ka leenahay war wada hadal iyo xal iyo wanaag iyo xikmad iyo odaynimada lagu xalliyo haddii wax ka duwan hayo habbareero ha yiraahdo dagaal baan ku xalinayna halkay marka la xusho ee ay la tagtaha laakiin waxba yaanu ku meeraysanin in ciidamada maxaan ku dhahdaay wax ka sheego markii wasiiradu sidaa u hadlaan annagu ma jawaabin sababta aanan ugu jawaabaynina waxa weeyaan waxaan u aragnaa hadallada noocaas inay yihiin hadallo ka hooseeya meeqaamkii dadka siyaasiyiinta ah ee mujtamacana eeganaya ay ku wada hadli laayeen hadallo ka hooseeya oo aad iyo aad uga hooseeya inay yihiin ayaan run ahaantii u aragnaa waxaan u aragnaa inay tahay aragti gaabnaan iyo qofkii oo aan hilaadin lahayn fahamkiisa siyaasiga ah inuu hooseeyo marka inaanu intaanu soo fadhiisana annaguna la murano run ahaantii waan ka gaabsan waxa weeyaan shacbiga ayaa judgment maxaan ku dhahdaa sameynaya oo xukumaya laakiin tiisa tashalay waxa weeyaan ninkii meedku ka dhacay ee yiri hadduu sii go'ay oo waxa weeyaan tii horeba maxaan ku dhahdaa tu ka daran ayuu wasiirku run ahaantii ku hadlay shalayto shacbiga reer Soomaaliland oo dhan baana ka maqraatiya oo maxaan ku dhahdaa siday uga xumaadeen arrintaasi ay u diideen ay uga soo horjeesteen ay ahayd wax wada aragteen oo alla wada socoteen oo maxaan ku dhahdaa baraha bulshada iyo meel walba lagu faaleynay xalay xataa wasiirro dawladda ka tirsan waayo dadka qaar baa damiirkoodu nooli wasiirro dawladdu ka tirsan ayaa aniga ila soo hadlay si ay ugu sheegaan arrintaasi inay ka xun yihiin maxaan ku dhahdaa wasiirka xukuumadda afkeeda sheegay inuu ku hadlaayo maxaan ku dhahdaa uu ku talaabsaday ku hadlo laakiin tiisa waa inuu ogaado haddii ciidanka qaranka uu sumad reer u sameeyo haddii ciidanka qaranka loo sameeyo sumada xisbi haddii ciidanka qaranka loo sameeyo haddii ciidanka qaranka naxli iyo kala qaybin iyo kala tag dhexdooda lagu abuuro sida hadalka wasiirka ka muuqata askarta ciidamada ku jirta inta cirro isku haybta yihiin inay cirro u shaqeeyaan buu u yaqaan laakiin sidaas ma waa ciidan qaranka mushahar ka qaata qarankooda u dhinta qarankooda u dagaalama laakiin inay dhagahooda waxa afayeenkii xukuumadda Soomaaliland ay ka maqlaan iyagoo duruuftay ku nool yihiin anagnahay iyagoo oo wax $100 ka yar qaata noloshii qoysaskoodu maxaan ku dhahdaa halka ay taagan tahay la og yahay in haddana maalin walba la reereeyo oo qurunka dadkii xukuumadda maxaan ku dhahdaa madaxda ka ah wasiirada ka ah ay ciidamada waxa u qooraan waxaan u aragnaa inay tahay ayaan daro iyo arrin lafjab ku ah maxaan ku dhahdaa qaranka iyo ummadda iyo wada jirka iyo wax kasta oo wanaag ku astaysan oo la sheego qofka mas'uulka ah markuu hadlayo waa inuu fahmaa oo uu gartaa hadalku macnaha uu leeyahay haddii uu garan waayo oo uu ku wado inuu ciidamada sidaas u reereeyo oo uu xisbi reereeyo oo hadallo aan miisaan lahayn had iyo jeer xisbi ku sheego wax xaqiiqo ah isaguna inaan wasiir qaran noqonayn askariga halka dhaxanta jooga ayaa askari qaran isaga uga dhow waxaan doonayaa inaan wasiirka u sheego shaqadiisu haddii uu yahay afayeenkii xukuumadda waa inuu xukuumadda dhaliilaha iyo ceebaha ay leedahay ka difaaco
shalay wuxuu ku baryootay inaan maxaan ku dhahdaa mushkil ceebahooda la sheegin laakiin maanta xukuumaddu way qaawan tahay annaguna diyaar uma nihiin aan asturnay waa sii qaawinayna ceebahooda waa sheegayna mar baanu sheegaynaa laba baanu sheegaynaa saddex baanu sheegaynaa iyaga laga rabaa inay asturaan iyaga laga rabaa inay ceebahaasi sidii u xalin lahaayeen keenaan iyaga laga rabaa inay keenaan siyaasadii ay ku xalin lahaayeen mashkiladda bariga ka jirta ee afar jirsatay iyaga ayaa laga rabaa inay dhaqaalaha dawo u keenaan annaga shaqadeedu waxa weeye ceeb kastoo ay sameeyaan iyo si kastoo ay u qaldamaan inaanu shacabka u soo bandhigno taasna saacad kama habsaamayno haddii ay jecel yihiin iyo haddii ay neceb yihiinba waxaan doonayaa inaan kusoo gabagabeeyo warqad baan u qori doonaa golaha wakiilada haddii la yiraahdo insha Allah aan ugu sheegayno inay u yeedhaan wasiirkaasi oo ay weydiiyaan sharaxaad sababta uu ciidanka qaranka u reeraynayo sababta uu maxaan ku dhahdaa askarta la yaqaanay ee weligood yaalahood ciidanka ahaa ee qarankan u dagaalamayay uu ugu sheegayo inay maxaan ku dhahdaa ay xisbi yihiin cadeynteedii inuu baarlamaanka hor keeno baarlamaanku weydiiyo baarlamaanku waajibkoodii ka guto warqad arinta ka hadlaysa ayaanu hadii la yiraahdo insha Allah u qori doonaa oo baarlamaanka u gudbin doonaa adiga aad baa mahadsantihiin حسبي المعارف هو ثاني ولا لو خيره ولا لو كيس أنا كعاد وعدي هذا ما أعرف رجو وضرب كده مثلا ضبط جدته الإنسان في أول ما كل ما ده هنا عن باريسان أنا كعاد الحاك لا حلا anagu xalkii waa naga sheegnay gudoomiyuuna ayaantii dhaweyto uu sheegay acyaantii Somaliland odayaashii iyo madax dhaqameedkii iyo mas'uuliyiintii waxa ay joogaan ceeri gaabay joogaan arinta inay xal u helaan bay joogaan anagu powerkii ma joogno ma empower gareyn karno waxa looga baahan yahay madaxweynaha inuu dadkaasi empower gareeyo inuu fahmo dulqaadku inuu raginimo yahay inuu dulqaad iyo xilkasnimo iyo xikmad madaxweynenimo u la yimaado arintaasina waxa la yiri xalkeeduna ka weeyaa xal kale ay leedahay ma jiro haddii baarlamaanka la qadar lagu gudbisana dadka farsan uu soo kooxay ayaga maas haddii baarlamaanku arinta ka qaban talaabada taas ka xisbiyaan annagu de talaaba aan wali dhicin ma doonayna ka sii hadlo baarlamaankan warqad u qorana markuu baarlamaanku warqadan nooga soo jawaabo ayaanu de ilan content ku qoran imika ma sii ogiin ayaanu hadii la raaxo oo dhan arintii haddii loo baahdo in xisbiga mucaaradka wadani kusoo qorshe kasta oo qaran oo arinta xal loogu raadinayo diyaar baan u nahay